الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. maanta waa maalin farxadeed, waa maalin aad iyo aad u qiimo badan, waa maalin geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku soo bandhigeen halkan awoodooda, qiimahooda, sharaftooda, dadnimadkooda iyo kartidooda. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta idinla joogo, idinla hadlo, dardaaranno, waajibaad kala qaadanno si aan ugu shaqayno qarankii aan u dhaaranay. cadowga yar ee tabcaanka ee inaga horeeya inaa cashir u dhigi doontaan. war arrintaa ballan ma tahay? ballan ma tahay? war waxaan u soconno waa qarankan inuu nabad helo, waa in qarankan iyo ummadda Soomaaliyeed ay sharaf ku noolaadaan. waddankan khayraadkiisa inaga badan, wanaagiisa inaga badan, baddiisa intaa leeg waa kan loo soo wada socday, nin walba u soo haliilayo. si aan u ilaashano qarankeenna waxaan u baahan nahay isbaaradan yarta ee khawaarijta inaan iska qaadno. war saas oo maaha? isbaarada yar ee khawaarijta waa inaan iska qaadno si aan adduunka ula simanno, si aad nin walbo halkaa fadhiyo oo maanta daljira uu ugu noolaado sida ciidamada adduunku u nool yihiin ee qiimaha leh ee sharafta leh. waa gacan qura, gacal walaalaa iyo geesiyaal isla goobtan ku balamay. guul ama geeri waa go'aanka galabta halkan lagu gaaray. gurmad qarankooley iyo geed baxaya baanahay, garbahan ku qaadna gantaalada dhacaya, goob dagaal markeeta gool barajayna. geesiyadan ayaa diyaar u ah god iyo geed goob weliba ay gabaad ka dhigtaan dhiig miiratada khawaarijta ah inay ka saaraan. taliya ku soo dhawaaw ciidamo u diyaare waajibaadka qaranka. taliya guubaabada saraakiisha doorkan waxay u ahayd dhiiragelin gaar ah dhiiranayaashan ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidankii xoogga dalkow waa maalin taariikhda xusi doonta maantay. waa maalin la ogaan doono shakhsiga u taagan gobonnimada iyo sharafka qarankeenna. waxaan noo ballanaa har iyo habeen, mugdi, dayax, qorax, qabow intaba inaanaan ka harin. soo jeer maahan. taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Sahal Cabdullaahi Cumar oo geesiyadan kula hadlaya degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa kula balamay in waajibaadkooda ay mariyaan haraadiga firxadka ah ee ku dhuumaalaysanaya qaybo ka mid ah gobolka. waxa uuna taliyuhu xusay wacadkii ay mareen ay maanta ku fuliyaan dhagar wadayaasha u maleegaya shacabka Soomaaliyeed dhibaatada iyo madaxyaweynta khawaarijta. dhaqaaqa aan halkan ka dhaqaaqna maanta inay noqoto dhaqaaqii ummadda u horseedi lahaa guul, dhaqaaqii cadowgaas dadkeennii qaybo ka mid haysta ee dhibaataynaya aan gacanta uga qaban lahayn. dhaqaaqii waxaan rabaa inuu noqdo hadduu allayra aan soo noqod aan guul ahayn aan yeelanin. ilaahay uga baqa saraakiisha ciidamada hogaaminaysa garaamka ciidanka. ilaahay uga baqa garaamka ciidanka siduu idinku soo gaaro u siiya. waa idinkula dardaarmayaa, waa idiin sheegayaa, waa waajib aan idin farayo. war ciidanka waa ilmihiinnii oo kale. ilmahaaga waa ka naxdaa, waa inaad askartaadana ka naxdid. waa inaad askartaada ka naxdid. iyagaa qaranka u taagan, iyagaa habeen iyo maalin soo jeeda, iyagaa u rafaadsan, iyagaa u dhimanaya oo u dhaawacmaya. qofkaas wuxuu kaa mudan yahay marka inaad ogaatid xaaladiisa, calooshiisa iyo noloshiisa dhammaan.
warballan ma tahay saraakiilow inaan arrintaas ka ogaano waxaa idinka rabaa hadduu alla yidhaaho in aad wax badan wixii hore ka beddeshaan hadduu alla yidhaaho sakariya qaasim bagax degmada matabaan